dhowaan ayay ahayd markii aanu booqanay deegaanka Shumuc ee waqooyiga magaalada Ceergabo oo ah deegaan ku habboon dhinaca dalxiiska isla markaana ku fiican dhinaca waxbeerista durdurka biyaha qulqulaya. deegaanka intii aanu joognay waxaanu wareysiyo kala duwan la yeelanay dadka deegaanka gaar ahaan dhinaca beeraleyda, waxbarashada, caafimaadka. sidoo kale wado xumo ka jirta deegaankaasi. qiyaas ahaan 50 kiiloomitir ayay dhanka waqooyi ka xigtaa magaalada Ceergabo. waa deegaan u badan buuro, isla markaana inta aad sii socoto ay kugu qaadanayso waqti dheer wadada oo xun awgeed. dadka deegaanka oo isu xilqaaday ka shaqaynta wadadaasi si loogu soo maro deegaankaasi guud ahaan waxaan ka jirin baahiyaha arrimaha bulshada sida goob caafimaad, dugsi waxbarasho, masaajid iyo malcaamad qur'aan. dadka ku nool deegaankaasi waa dad tiro badan isla markaana ka shaqaysta beeraha ku yaala deegaanka Shumuc. isla caruurta deegaankaasi nasiib uma helin dhinacyada waxbarashada iyo caafimaadka, iyagoo dadka deegaanka qaarkood noo sheegeen in hooyooyinka dhibaato weyn ka haysato dhinaca foosha xilliga ay timaado, iyagoo noo sheegay in qaarkood jidka kusii nafbaxaan. gudoomiyaha deegaanka Shumuc Saalax Maxamed Cali oo ugu horeyn halkaasi ka hadlay ayaa ka warramay baahiyaha ka jira deegaanka Shumuc ee waqooyiga magaalada Ceergabo. wixii aadanimo nimcadii ilaahay waa ku manaystay, laakiin nimcadii tacabkii aadanimay u baahan tahay. waa goob aan waxba laga qaban, waa goob fara badan. 15 ceel baa Shumuc hoos yimaada. caruurtoodu ma laha wax, waddo ma laha, saaqyada ma laha, malcaamad masaajid ma laha. dhinaca beeraha sirarkii waa u baahannahay. waxaanu beeranaa been sheegi maayo, ragga qaar baa sii beerta sharciyadii siyaad berigii oo ay inin iska daba beer. beertaydu waa taa igu toosan haddeer. ilabaa naga haystaa waxaa weeye biyaha iyo siidhka iyo waddada iyo cayayaanka beeraha naga cuna, birta sibidh nooma leh. ceelku biyuhiisu ma badno, waa durduro baraaga nooma leh. wax naga caawiyaana ma jiraan. wasaaradda beeraha taageero wax allaale waxaanu ka helnaa ma jirto. nooma soo gaadho weli. deegaanka Shumuc wadda xumadu waa kow. jid la'aanta waxyaabo badan bay keentay. qofkii oo xanuunsaday oo yacni ilmahay oo umushi oo macnaawiyan umushi dhiigbax yacni meel irbad caafimaad ma leh, masaaj ma leh. 15 ceel midiba mid iskuul iyo mid waxbarasho leh midna ma jiro. xagga caafimaadka cid uma keenin. haddaanu hay'adaha ka shaqeeya degmada Ceergabo tagnayna mid waliba intay tiraado waa soo eegaya. qaar baan anagu qarash gareynoo lacagteeda ku bixinoo keenay halka keeroo kala ka mid ah. dadkaanu qarash gareynoo keenay meesha aan waxba noo qaban. markaa waxa weeye baahiyaha u badan waxa weeye leeg tahay, laakiin wixii ka caawin lahaa hadday qurbo joogta dalka u dhalatay tahay iyo hadday tahay hay'adaha dawladda iyo hadday tahay hay'adaha maxalligaaba midna anagu waxba kama arag. waa u baahannahay in naloo gargaaro oo shaqada dhinaca nalala qabto. xagga caafimaad hadalkeed badaa. degmada ballaaran ee intaa leeg ee waxaasoo shacbi joogaan ee macallin u qora aan lahayn, ee iskuul aan lahayn, ee malcaamad aan lahayn, ee masaajid aan lahayn. waxa weeye halkaas in wax qabasho hadday qurbo joog tahay iyo hadday dawlad tahay iyo hadday in wax loo qabto. dhibaatooyin waaweyn baa naga haysta. waxa weeye umulisooyin ma lihin. dabadeedna maxaan ku dhahdaa dee dhibaatooyinkaasaa naga haysta. waxa weeye caruur waxba nooma bartaan, malcaamad ma leh, waxa weeye iskuul ma leh, dhakhtar ma leh. dee hooyooyinka aad iyo aad baan uga xunnahay oo waxa weeye aanu dhibaatooyin nooga haystaan. iyagoo musho oo kale waxa weeye dee dhakhtar ma leh. dee halkaasay naftu kaga baxay. Ismaaciil Maxamuud, Boqor Cabdi, Boqor Axmed Dheere ayaa dhankooda qiray in baahiyaha deegaanka Shumuc ee waqooyiga Ceergabo ay dhammaantood jiraan isla markaana loo baahan yahay in sida ugu dhaqsaha badan wax looga qabto.
bada ay mashruuc ayaa isa saaran ilaahay xoolana waa siistay beerahana waa ku manaystay waxa haddaba foorgur gabageeda meeshan ka maqan baahihii aasaasiga dhammaantoodba marka aanay jirin waxbarashaba mid diineed iyo mid maadi midna kama jiro caafimaadna kama jiro caafimaad ummaddu waa caafimaad oo ay caafimaad qabaan laakiin waxaan uga jeedaa macnaha goob caafimaad ma jirto haba yaraatee wadada hadda aynu joognaa waa waddo taariikhi ah waa waddada kaliya sida waxay ku taallaa Soomaaliya ama Somaliland ee afkooda waxaa ku soo samaystay dadka halkaa tuban ayaa xoogooda iyo xoolahooda u horay hay'adana uma samayn dawladana uma samayn waxaan meesha marnaba ka muuqan wasaaradaha ay khusayso waxaas hadday caafimaad ka tahay hadday beeraha tahay hadday xanaanada xoolaha tahay hadday waxbarashada tahay wax allaale waxay ka qabteen iyana goobtan diiwaanka ugu jirto sida dadku sheegayaan waa runtood anigu waxaan kamid ahay dadka madaxda u ah ay sheegayaan marka waxaan inta badan u nimaadnaa xilliga doorashada waa runtood annagoo doonayna cod baan u nimaadnaa laakiin baahi badan baa haysa waa aragtaa wadada idinka waa la arkaa caafimaadkii waa la arkaa ma haystaan waxbarashadii dadku waa kuwa halkaa fadhiyo mid wax qoraya ma jiro waxaan u markhaati furaynaa in dhibaatooyinka ay sheegayaan ay jiraan dhammaantood ayna u baahan yihiin ciddii waana ugu qaylinaa cid kasta hadday dawladda tahay qurba joogga hadday tahay iyo cid kastoo wax ka tari karaysana waanu ugu qaylinaynaa waanuna u dadaalaynaa waanu doonaynaa wax allaaliya wixii ka maqan si kastaba ha ahaatee deegaanka shumuxshumuxii waqooyiga magaalada Ceergabo ayaa ah deegaan ku habboon dhinaca dalxiiska wax soo saarka balse waxaa deegaanka shumuxshumux dhibaato weyn ka haysata baahiyaha nolosha aasaasiga ah taasoo sababtay in dhalinyaro badan oo ku nool deegaankaasi ay ka hadhaan dhinaca akhriska iyo qoraalka Yasin Ibrahim Umar Nasri telefishinka caalamiga ee SBC deegaanka shumuxshumuxii waqooyiga magaalada Ceergabo